2019 ayay aasaaseen shirkaddan Khadar iyo saaxiibkii waxaana waqtigaasi uu ahaa mid ay si weyn uga fikirayeen mustaqbalka shirkaddu sida uu noqon doono maadaama shaqada dhismuhu ay aad u adkayd caqabadaha ay la kulmayeen awgeed wax kasta waxay noqdeen kuwa adag balse isma ay dhiibin sababtana sidan ayaa ku sheegay gudoomiye Khadar su'aasha weydiisay haddaan u gudagalo xafiiska Sarmad Construction Company waxaynu aasaasnay 2019 August 24 aniga iyo nin kale oo saaxiibnahay oo muddo imika 18 sanadood aan dhismaha ka soo wada shaqeynay waxaanaynu saaka fadhinaa HQ-gii ama xaruntii guud ee shirkadda Sarmad Construction Company xusid mudan inaan dhaqaale aanu dhismo ku bilowna aanan haynin oo halkan Cumar Caydid aan ka salaamayo tiyaatarka uu naga siiyay guri ama qol free of charge internetka free noo yahay nadaafadda free noo yahay ilaa intii aanu runtii awoodi karin inaanu gaadhno inaanu guri kareysano maanta waxaan dhex taagannahay HQ-ga shirkadda oo 6 dabaqa oo shirkaddu ay leedahay shirkaddani ay aasaaseen Khadar iyo saaxiibkii ayaa mid mashaariic dhisme oo kala duwan ka furisa guud ahaan dalka waxaana lagu magacaabaa Sarmad Construction Company qaar ka mid ah mashaariicda dhisme ee ay wada shirkaddu ayaan kormeer ku tagnay aniga iyo gudoomiye Khadar waxaana uu ka warramayaa hirgelinta dhismayaashan casriga ah waa downtown-kii guriga waxa ka kooban yahay waa 7 floors oo loogu talagalay goob ganacsi waxaana ka mid yahay mashaariicda aanu ka wadno suuqa gurigan waa guriga ugu dheer hadda so far intaanu dhismaha aanu gacanta ku wadno 7 dabaq weeyaan waxaanu socday marka 12 bilood baa hadda maraya waxaana rajaynayaa insha Allah taala maalinka uu dhamaado inuu noqon doono il dhaqaale oo wadanka wax badan ku soo kordhiya haddaan xirfadda markasta la kordhin halkaaga taagnaanaysa marka isbeddelka daadiyada jira ka qayb qaadan maysid inta badan marka guriyaha hadda imaka aan wadno oo aan filaya tiraba ilaa 5 guriinayiin waxaan ku wadnay suun buushi waxa kale haddaan ku darnaa qolalkii gymka lagu ciyaariyay oo qofkii wuxuu u baahay markuu maalin oo dhan shaqo ku maqnaado inuu caafimaad ahaanade u nasto kale waxaanu booqannay dhismayaasha kala duwan ee shirkaddu ka wado magaalada Hargeysa waxaana uu Khadar ka warramayaa qaabka loo nashqadeeyay dhismahan aan haatan joogno oo ka duwanba dhammaanba dhismayaasha aanu soo aragnay waxaanu ka wadnaa buurta kala jeexan waa taa buurtii halkii laga kala gooyay ama waa jigjiga yar waxa uu ka kooban yahay gurigani G+2 qolalkiisu waa ilaa 10 hurdo ilaa 3 fadhi jimkii sumbushio shaqadiisa ay socoto aynu hoosteeda ku soo marray marka waa guri runtii aan isleeyahay waa modern ama wuxuu ka mid yahay guryaha ugu casrisan ee hadda shirkaddu gacanta ku hayso tirada jecelnay guul ka gaaraan ganacsiga ayaa markan uu fariin la wadaagay Khadar waxaana ay ahayd sidani waxaan u dirayaa hal dhiirado ganacsigu waa barakeysan ganacsigu wuxuu u baahan yahay daacad ganacsigu waxa uu baahan yahay qofku inuu daacad noqdo wixii wax dadka kala garto waxa uu ballan qaado uu sideeda u fuliyo waxaana leeyahay dhiirada dana dhismaha Sarmad kaasi oo aasaaseen Khadar iyo saaxiibkii ayaa mid ka furisa guud ahaan dalka mashaariicda kala duwan ee dhismayaasha gaar ahaan guryaha gaarka loo leeyahay dhismayaasha dhaadheer ee ganacsiga dhismayaasha garoonada casriga ah iyo masaajidada dhanka kale Khadar ayaa ka warramaya hamiga mustaqbalka ee shirkadda dhismaha ee Sarmad hamigayga guud waxa weeyaan inaan wadanka waxyaabaha laga dhiso noocay doontaba ha noqotay aan wax ka bedelo oo runtii imaka lagu amaano inaan wax wanaagsan wadanka ku soo kordhinay sida meelaha business centers oo kale ay dhismaha weyn ee carwada tiyaatarka Cumar Caydid ka dambeeyo kale oo dhismihiisa shirkaddu fulisay suuqa Waaheen ee gubtay oo aan ka fulinay 3 block suuqa Waaheen 24 block buu ahaa 3 block kamida waxa fulisay shirkadda dhismaha Sarmad 3 block aan dhisnay mid kamid waliba xuyay mid ka guriga ugu dheer oo aan u dhisnay Maxamed oo Daahir horta waxaan rajaynayaa waxa jira curfihan shirkadaha dhismuhu lama kala dhaxlo ilaa wax ka rajaynayaa dhisma shirkadda maanta 8 jirka inay noqoto yeeris oo la kala dhaxlo oo ubadku naga dhaxlaan oo jiilba jiil u sii dhiibo qorisku dhib ay noqoto wadankeena waqtiino dhismo runtii shirkaduhu cimri dheer ma laha laakiin waxaan isleenahay ilaahay idinkiisa dabarkaas waydun jabin doontaan arintaasna meel baydun saari doontaan ilaahay idinkiisa maanta magac wanaagsan baynu leenahay shaqo fiican baynu qabanay waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisa inaynu Soomaaliland lixdeeda gobolba aynu shaqo fiican ka qabano
mustaqbalka dhowna aynu insha Allah taala Djibouti iyo Ethiopia kilalka shanaad aynu dhismayaasheena ergaano runtii inta dalabna laga soo weydiisto la yiraahdo meedan halkan noogu imanaynin Khadar ayaa fariintan la wadaagay macaamiisha shirkadda iyo dadka jecel in shirkadda Sarmad ay u hirgeliso dhismayaasha casriga ah horta mahadnaq marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqay cidii aanu shaqeeyay waa ilaa aantood halkan ma soo gaareen dadku iyaga marxaatiya iyaga shaqada qabatay fariinta gudbinaya oo oranaya shirkadda Sarmad waa shirkad fiican oo ballan wanaagsan shaqo fiican loo qabatay hadii kale vice versa iyaga problemkaaga qaybta ugu noqonay marka horta marka kooda waxaan u mahadnaqayaa macaamiishan hore ugu soo shaqeynay waxa kaloon gudbinaya inaanu xirfadii shirkadda kor u qaadnay haday noqoto finishingka haday noqoto shaqaalaha haday noqoto materialka aanu rabno inaanu gelino gudaha sida xamaamada madbaxyada iyagana runtii wax unique baan runtii makeenta dambe u halabuurnay waxa kaloon dawladda u dhameystirnay dhawaan garoonkii Rabadaantii lagu ciyaaray oo runtii sumcad fiicanna shirkadda u soo jiiday aan aaminsanahayna in arintaasi ay dawladana magac u tahay annagana ay magac noo tahay waxa kaloon wadanka ka fulinay masaajidada waaweyn oo xagga masaajidada waxa naga farxtino ah imaka cid kasta oo ku hamida inay masjid dhisto shirkadda Sarmad maskaxda qofka ku tala galay inuu fuliyo dhismo masjid way ku soo dhacdaa tusaale ahaan dhismaha masaajidka Xaaji Yuusuf oo oday ka yahay dambiga salaad dhaafay Sheekh Ismaan Ali Xuseen Sheekh Xamadiid oo halkan runtii ducay hambaliga uga dirayo oo aanu isagana u dhisnay masaajidka Garcase masaajidka weyn ee Sultan Maxamed Xasan masaajidka Carafa iyagana masaajida badan baan runtii gacanta aanu muddada aanu shirkadu ay dhistayaan wadanka fulinay waxa kale oo iyaduna xusid mudan oo aan marnaba aan ilaabaynin dhismayaasha residential houseska oo aanu dad badan oo macaamila aanu dhisnay oo runtiina magac weyn shirkadu soo jeeday sidii kuwii guriga aynu saaka soo marnay oo kale marka guud ahaan shirkadu runtii every sector waynu ku xooganahay magac fiican oo ku leenahay muddada 8 sanadood ee 4 bilood ay ka dhimayna waxa Ilaahay loogu mahadiyaa inaanu dadka u qabanay shaqo fiican oo aan sumcad ka helnay oo aan ceeb iyo nusqaan toona lahayn